Asalaamu calaykum dhammaantiin waan idin salaamay meel kastoo aad joogtaan. Muuqaalkan waxaan kaga hadli rabaa labadii kulan ee xalay la soo ciyaaray ee xiisaha lahaa. Labada kulan waxay ahaayeen kulamo kalaasiko ah, taas oo ay madaxa isku darayeen Real Madrid iyo Barcelona iyo sidoo kale Liverpool iyo Manchester United. Dhanka Real Madrid haddii aan ka hadalno, Real Madrid xalay 2-1 ayaa lagu garaacay, taas oo Barcelona halkaas guusha ay ku raacday. Barcelona half-time-kii hore gool ayay dhalisay, taasoo half-time-kii dambana gool kale ku dartay, halka Real Madrid dhammaadkii ciyaarta ay hal gool iska keentay. Walow kulanku kulan saaxiibtinimo ahaa, hase ahaatee kulankan mar kasta oo la ciyaarayo waa kalaasiko oo qolo walba awooddeeda ayay isticmaashaa. Haddaba hambalyo Barcelona 2 gool inay ku adkaato waxay kaga dhigan tahay inay ballansanayso bilaabashada La Ligaha. Sidoo kale waxaa soo dhamaaday kulan u dhexeeyay Manchester United iyo Liverpool. Guriga lagu ciyaarayay waxaa iska lahaa Manchester United, halkaas oo 3 gool lagu soo garaacay Manchester United. Liverpool iyo Manchester United labada kooxoodba waxa ay ku soo bilowdeen balaayarin waaweyn, walow markii dambe Manchester United iyo Liverpool ba ay balaayarin yaryar garoonka iskugu keeneen half-time-kii dambe wixii loo gaaray. 3 gool oo ay ku badisay Liverpool waxa uu kala dhaliyay Fabio Carvalho, Tsimikas iyo Jones. Sidoo kale kulankan waxaa la amaanay Mohamed Salah, kaas oo 3 kulan ee saaxiibtinimo u soo ciyaaray, 2 caawiyay, 1 dhaliyay. Liverpool hambalyo maadaama aad Manchester United ka soo adkaateen. Dhammaantiin aad u mahadsantihiin. Muuqaalkan hadduu ku soo gaaray waxaan kaa codsanayaa inaad ku soo biirto TikTok-aygan Tayo Sports, sidoo kale YouTube-ka haddaad naga daawanayso subscribe iyo like ha naga hilmaamin. Dhammaantiin aad u mahadsantihiin.